su-aasha labaad aan u guda galaynaa. Su-aasha labaad waxay xiriir la leedahay page 4 xiriir la leedahay ama page 3 qaybta note-ka buugaaga tag page 3 tag qaybta hoose note-ka ah coefficients-kaasi xiriir la leedahay. Hadii marka ku fahansan tahay cos coefficient-keeda fahansan tahay sin sidoo kale tan sidoo kale cos sec cot waxyaabaha fahansan tahay waa ka shaqeyn kartaa. So marka su-aasha u guda galno waxaa la yiri write waxa qortaa each function value qiimo kasta functionkiisa qor in terms of adoo ku shaqeynaydo coefficient horgalayaasha of complementary angles. Complementary angles da maqasho waa 90 degree oo laga jaray teetada. Yani teeto wax kale ma ahan xagasha adiga lagu siin doona waxa ka jari doonta 90 degree. So marka mar waxa adeegsanaynaa degree marna radian. Haddii marba radian noqoto 90 degree booskeedu waxa gali doono pi over 2. يعني 180 oo loo qeybiyo 2 hore waxa u sheegnay 180 ka in ay u taagan tahay as SI unit ahaan ay u taagan tahay radian oo soo sheegnay soo marka 90 degree oo laga jaray theta noqon doonta xaglaha markay sidaa yihiin waxa loo yaqaanaa complementary angles xaglaha waxa jira marka la yiraahdo supplementary angles waa 180 oo laga jaray theta markii xagashu ay tahayna waxa la yiraahdaa supplementary angles soo marka hadda anaga waxa joognaa complementary angles kana aan ka shaqeyno waxa la siiyay tan 87 degree aan la siiyay waxa la rabaa marka coefficient-geeda inaan ku shaqeyno leedahay cot theta waxay kula mid tahay tan 87 degree marka cot coefficient-geeda waa taqaanaa adigu cot coefficient-geeda wuxuu ahaa tan bracket 90 degree laga jaray theta waxay kula mid tahay tan 87 degree marka waxa sameynaysa tankan hadii equal inta uu ka soo maro minus uu ku imaana maadaama sida ay tahay waxa sameynaya marka waa isku bixinayba barteeda ku isku bixin kana bala soo wata kan hadii inta uu imaadana minus uu ku imaan doona hadii equal kan inta uu ka soo maro sida darteeda barteeda ku bixiba tankan iyo tankan asla baxay theta waxay kula mid noqonaysaa marka 90 degree oo laga jaray 87 degree theta marka ugu dambeyn waxa soo bixi doonto 3 degree meesha ku dhamaatay yani wax kale ma ahan cot theta waxay kula mid tahay tan 87 degree qaabkan u dhisaysa su'aasha soo marka cot coefficient-geeda muxuu ahaa cot coefficient-geeda wuxuu ahaa tan bracket 90 degree minus theta waxay kula mid tahay tan theta marka booska theta waa lagu siiyay 87 degree tanka hada soo wareejino wuxuu inta ku imaan doonaa minus waxa la baxaya marka tan iyo tan barteeda isku la bixiyay theta waxay kula mid tahay 90 degree booska theta waxay ku bedelaysaa 87daas 87 kala jarana waxa soo bixi doonto 3 degree marka su'aashaasi meesha ayadana ku dhamaatay qaybta F waxa u soo qaatay wax kala maahan su'aalaha ka dambeeyo dhan nidaamkaana mari doonta qaybta F ka shaqeynayna oo inta waxa ku haysanaa sin waxa haysanaa sin 142 degree iyo 14 daqiiqo coefficient-geeda cos muxuu ahaa sin 90 degree laga jaray theta waxay kula mid tahay sin theta soo hay inoo bedel bas kaliya marka booskan oo theta waxa loo bedelaysaa 142 degree iyo 14 daqiiqo soo marka waxa sameeynaa sin-kan iyo sin-kan isla bixi doono theta waxay kula mid noqonaysaa 90 degree oo laga jaray 142 saacadood degree iyo 14 daqiiqo soo marka inta joogtid waxa isticmaalaysaa calculator-kaaga si aad u kala jarto toosa u gelinaysaa waxa soo bixi doonta marka theta waxay kula mid tahay -50 iyo 2 degree iyo 14 daqiiqo -50 iyo 2 degree iyo 14 daqiiqo wax kale ma sameynaysid 90 degree oo laga jaro 142 degree iyo 14 daqiiqo si toos ah u gelinaysaa kadib waxa ku soo bixi doonto -50 iyo 2 degree iyo 14 daqiiqo ku soo hari doonto marka su'aasha labaad ayadana 6 qaybood ee 6 su'aalood ay ka sii kooban tahay labadana ka qaatay halkaas ku keenayna ayadoo dhameystir hadaan rabtana nambarada shaashada ku qoran la soo xiriir wabillahi tawfiiq